السلام عليكم دمان soo dhawaada akhyaarta maaragtay cashirkeena maanta waxaa waaye waxaan baran doonaa wax la dhaho previous structure-kii ugu dambeeyay ama previous structure sida idin sheegay maaragtay cashirka hore suuqan labada siyaabood aan ku sugayno waxay ahayd ku dhahay in maaragtay inta oo imaado oo reject laga siiyo ama inuu kor ku xirmo oo hadana hoos ku soo xirmo oo tijaabiyo retest ku suubiyo kadib asaas u gaadano ama in ma aragtay meeshan labaad area if interesting labaad imaado oo sell dhaho marka hadda ma aragtay example hadii meeshan as dhihi lahay ka qaado ma ka qaadan lahay hoos u bixina 30 minute shift wax la raadina idinka ogaa doontiin dhoti okay hadda qaacidada aan ku gali lahay maba maaragtay lahayn markuu marketka imaaday meeshan area soo laabtay area interesting 30 daqiiqo marka la taago time frame-keeda waxaa rabnay in maaragtay oo shift meeshan ka dhaco kadib aan galno laakiin nasiib daro ma helin kan dhalkana kor ku xirmay hadda kor ku xirmo micnaheedu waxa waaye faraha ka qaadana fanta khayrta faraha ka qaadana area-deena korkiisa ku xirmay marka labaad waxaa rabnay waxay ahayd in maaragtay meeshan uu wax yar taabto fanta kadib shifti noocan oo kale markuu dhaco waa qaadan karnay oo maaragtay engulfin iyo waxyaabaha saaraysan karnay laakiin maaragtay ma uusan dhicin meeshaas ma taabanin soo hadda wax kaliya aan sugayno waxa waaye marketka daily-ga inuu maaragtay hoostiisa ku xirmo area of interest-gan kadib meeshan waxaa dhacayso lower low lower high lower low cusub waaye kadib lower high-ga iyo waxa isku aadamayo maaragtay area of interest-geyga daily-kan lakin hoos ku xirmo area of interest iyo lower high-ga markuu isku aadamo kadib lower high-gana ka soo qaadan doona insha Allah lower low oo ugu dambeeyna take profit-keyga waaye saas aan marka insha Allah ka fiirin doona trade-kan macnaha qaabka camala u qaadanaa aniga trade saas ay tahay trade-kan ani maaragtay isbuuc ma sugooy oo tusaale ahaan leeyahay bis qaabka u qaadan lahayn trade-yaasha marka u laabano cashiradii oo maaragtay previous structure wax laga wado iyo maaragtay macnihiisa horta tusaale ahaan ay idin siiyo chartiga line-ka tusaale idin ku siin doonaa hadda saan markay tahay marketka higher high higher low higher high meeshan waa structure ugu dambeeyay oo la jibiyay fahmaya akhayrta meeshan muhiim waa previous structure ugu dambeeyay waa ama structure ugu dambeeyay oo la jibiyay okay previous structure akhro horta sida si fiican ugu fahantiin previous structure Allah Soomaali ahaan structure-kii ugu dambeeyay okay marka sidaan previous structure waaye xisaabtiisa ama qiimeyntiisana waxaa siinaa anaka previous structure-ka 10% waaye previous structure-ka Soomaali af Ingiriis leeyahay ma ahane hal 10% leeyahay ha ku wareerin marka 10% asina confluence ahaan marka confluence ahaan u xisaabsanayno tusaale marka previous structure-ka dhowr qaybood oo noqda example marka akhyaarta previous structure-ka ugu dambeeyay kan KY hadda tusaale ahaan previous structure-ka ugu dambeeyay qaybtan KY maskaxdaada tijaabi meeshan waa number 1 meeshan waa number 2 meeshan waa number 3 wax yar fikir KC lahayd previous structure number 1 number 2 number 3 kee dhihi lahayd previous structure kan waa aqligaaga bis wax yar ka shaqeysii adi is xisaabi wax dooro okay haddaad dooratay number 2 waa khaldan tahay haddii aad doorato number 3 waa khaldan tahay number 2 sax ah sababtoo ahna
نوعا ونوع كلا previous structure إيه ومعرفتي higher high إي higher low الفيريا example ماشان higher low واكنا higher low واكنا higher high واكنا previous structure ودن بيني ودحدود waa structure dhexdooda ku yaala waa fahanta khayrta higher high iyo higher low-ga ama lower high iyo lower low-ga previous structure-ka structure-ka u dambeeyay waa labadaas dhexdooda structure-ka ugu dambeeyay waa oo ku jiro fahmaysiina khayrta labadaas dhexdooda previous structure-ka u dambeeyay oo ku jiro waa example hadda kan waa higher low ugu dambeeyay kaasina waa higher high ugu dambeeyay okay previous structure-ka u dambeeyay haddii aa maqashid waa labadaas dhexdooda kan ku yaala waa kan waa ma fahanteen khayrta ma la fahmo previous structure waa higher high higher low dhexdiisa midka ku yaala tusaalooyinka waxaa idin siin doonaa salka ah lower low lower high lower low saa marka la dhaho qaybtan waa lower low lower high adhe qaybtanna waa lower low okay previous structure-ka aabi oo 10% ah xisaabsan doontid waa kana waa previous structure-ka waa kana kan ugu dambeeyay waaye lower low iyo lower high-ga dhexdiisa ku yaala oo ugu dambeeyay waaye okay previous structure qaybtan kalena waxay noqon doontaa sidaan oo kale sidaan ay noqon doontaa jarti oo ku arki doontiin dib male previous uu dambeeyay kamya maya waa lower low horta calaameysane lower high dhehe iyo lower low-ga kadib aa maaragtay heli doontaa previous structure-ka previous structure-ka higher low-gan iyo lower high-ga kan ugu dambeeyay maaragtay oo labadan maaragtay ka yimid waaye ma fahanteen khayrta waa kana hadda waa kana labadan oo ku xiga lower high-ga oo ku xiga previous structure-ka u dambeeyay higher low-ga oo ku xiga previous structure-ka u dambeeyay khayrta structure-ka u dambeeyay oo higher low ku xigo waa previous structure khayrta hadaa fahanteen af Soomaaliga please waa kana previous structure kana la dhahaa oo macnaha structure inta kan iyo kana la dhahaa previous structure waa kana tusaalaha oo jartiga waa kana oo macnaha oo line-ka ah line ahaan waaye kan tusaalaha jartiga caadiga ah aad tagi doonaa insha Allah marka saas ul socda waana practice gareyn doonaa wax la dhaho previous structure inkastoo aan rabin Euro JPY inaad taabto oo aan fiirino hadda fiiri previous structure waa kankee example tusaale ahaan idin tusaxtaa kan waa la goyn karaa khayrta waa la goyn karaa tusaale kan hadda fiiri maxaa dhaca meeshan khayri anaka mar walbo boodiga xisaabnaa taas xisaabta ku tirsada fiiri higher lower low lower high lower low marketka previous structure-kiisa waa kana inta waa kana waa la taabtay mujida maxaa dhacday muddo kadib waa laga dhaca mujidi okay dal marka haddii arabno maaragtay marketkan lower low kan previous structure-kiisa waa kan waa kan ma aha kan waa fiiri example tusaale inta idin dhigaa sida u fahantiin mujidina khayrta previous structure-ka ugu dambeeyay waa lower high-gan lower low-gan dhexdiisa waa saa u fahanti saa u jeedin mujida khayrta sida loo xushmeynayo previous structure-ka fiiriya khayre mucjisada mujida waa area aad u adag oo maaragtay confluences adag leh fiir sida loo xushmeynayo fiir meeshan haddii akhadna fiir previous structure-kan again fiir previous structure waa kana fiir sida loo xushmeynayo fiir sida loogu daatay mujida meel adag oo qurux badan waa fahanteen
بايدن تسأل أنا بحنها مجدنا خيرت بريف ستريجر مركا دليل معها وح أو مهم يا واي كنا معها بريف ستريجر وكان مركان sababta ee kor u kacay hoos u baxay kor u kacay oo soo jibiyey brief structure kana noqotay higher lower lowan iyo lower highgan kan ku dhigan leh waa brief structure mar walba kan dheerka ma ah kan waa ka ugu dambeeya waa brief structure sida tusaalooyinka ay tusaalooyinka marka waa la tagay oo jeedin meeshii sida oo jeedin heerta nadiif lower low dhexda ku baxshaale oo soo jibiyey lower high kana noqday kana waxa noqday lower low brief structure kana noqday waxaa dhacday waa la soo tijaabiyey waa la imaaday waa la xushmeeyey waa laga daatay simple okay kan hadda okay kaas waa laga soo gudbay hadda marka marketka wuxuu subsaday new lower high iyo new lower low lower high cusub iyo lower low cusub subsaday lower high gi cusub iyo lower low cusub brief structure kooda waa kana marka marketka meeshan uu imaado haddii aad ka dhex heshid maaragtay previous support and resistance meelahan brief structure-kan 10% ahaan oo xisaabsanay trade shift iyo waxyaabaha ka sugay sala soo dheh doontaa fahantana khayrta saas oo sal gareed doontaa marka brief structure waa sidan ya inay fahanteen ay rajeynaa khayrta arrintaas brief structure waa muhiim iyadoo weekly example idin siin doonaa بايدان صفبتي تي بي وكذا سأجدين marka akhairta telefoonka hadlay sorry marka weekly-ga waa kana sida u jeedin akhairta fiiri simple way high higher low higher high mujidin akhair waxaan intee la imaaday fiiri meesha intee la imaaday higher low wal subsaday higher low marka la subsaday oo weekly-ga ah intee waa meeshan previous structure u dambeeyay waa خير previous structure u dambeeyay waay support iyo resistance ay noqon kartaa daily support iyo resistance amle ka tahay laga yaabaa waxa ka dhacay meeshan okay fiir hadda waa wala imaanaya area la imaanaya area-dan waa area fiican oo buy laga gali karo fahantana khayrta weekly-ga higher low-giis waaye inkastoo daily-ga oo sell noqday oo shift sell noqsobiyay meeshan waxaa laga raadinayaa hadhowti 4 hour-ka waa time frame ugu horeeyo oo kala wareegaya infantan 4 hour-ka inuu koodii maaragtay shift yar saan u suubiyo oo higher high isku bedelo oo trend hadda sell ku socda 4 hour inuu kala wareego kadib higher low 4 hour-ka shift laga sii raadinaa kadib waa marka target gareynaysid sellkan oo daily-ga oo inuu sell noqdana oo ka soo horjeedina waa ka maarmi kartaa oo 4 hour iyo daily-ga iyo weekly-ga kula jiro fahant 4 hour iyo weekly kula jiro marka khayray ina fahanteen arjina maaragtay wax lagu wado previous structure wax fudeed waaye wax saas u adag ma aha waa kana soo jeedin maaragtay higher high higher low higher high higher low iyo support resistance-ga iyo previous structure-ka isku aadan iyo EMA-ga waa intaas oo confluence zone adag inuu yahay cadeynaya zone-kan oo caadi ahayn cycle level waa 5% area of interest waa 10% oo daily weekly previous structure waa 10% maxaa kale okay intaas aba ka badan fahantay intaas waxa weeye 25% waa zone-kan bis inta kale confluence dhamma wala xisaab inta zone-kan bis marka zone noocan oo kale waa zone adag oo la xushmeynayo oo maaragtay oo fiican marka khayray waa kaasa
brief structure waxa laga wado inaa fahanteen aan rajeynaa insha allah.